Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Asxaabta si aad la socotaan badhawaantan warbaahinta TV-ga Qubi waxay hoyga uu ka degan yahay magaalada Port Elizabeth ee wadanka South Africa ku booqatay nin dhalinyaro ah ahna nin aad ayaa sidii ka muuqata laakiin nin abwaan ah oo dhammaan xafisan gabayadii iyo taariikhihii Soomaaliyeed oo dhan saa darteed ayaa waxaan kusoo booqday hoygiisa. Waxaan rabaa inaan ka wareysto waxyaabaha uu ka xusuusto taariikhdii Alla u naxariistay halgamaagii weynaa Soomaaliyeed Sayid Maxamed Cabdulle Xasan abwaan Kukay Axmed Kukay maxaad naga siin kartaa xooga ama gabay taariikhdii Sayid Maxamed Cabdulle Xasan? الله naxariisto Sayid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu ahaa halgamaa Soomaaliya gabayadiisiina gabayo waxay ahaayeen caalamka daafihiisa ma garanaysaa kaga jira baal dahab kaga jira bay ahaayeen marka anigu inta badan waan xafidsanahay laakiin always waxaan naftaydu isweydiiyaan baa jira hal gabay macnaha aan mar walba aan macnaha isweydiiyaa jira gabaygaas adiga macnaha inta ila dihinba waa maqashiinayaa wuxuu ahaa gabaygii ninkii kasoo horjeeda cali goxaadaraha oo macnahii ku riyooday habeenkii intuu yidhi waran baan galay iyo sayidkii waan ku dhuftay subaxii markii meeshii la tagayna la arkay sayidkii oo noo noliyay waxay dhaxalay maxaad noo waashay ninkii riyo kuma dhimanine maxaa xalay noo waashay wuu yidhi hootadan gol dheer iyo karida calasa guudkeeda waxay sii gidlaysaba markii gudubba ay gaadhay wadaadkii sidee ooga gabaday waa gol madhantay waxaa dhahaya abwaan cali dhoox cadamayay sayidku wuu duulay markuu waddada sii mariyay gabaygan tiriyo wuxuu yidhi ninka yidhi waxbaan ganay asagoo golaya cayn jooga oo yidhi baddi garacad baan gudub u weydaarshay godka lagu cadaabiyo muxuu goohu been sheegay ninka gaala ay maday intuu gabasadoo qaatay magaalka tooska ninkan gaban ka sii daayay sidii goydhageysana ninkan gobolba meel aashi guutooyinku waxay ninkan gawrac ugu jiiday hildhigaamadu sidii ninkan goobta kaga qaaday guddoonkii dagaalkii ninkan guusha kala laabtay gidigeed masaarada ninkan goomanta u gooy miyigaba ninkan galangashaen guyo uga dhaartay gardhido ku jiifsado ninkan lagu gulguuray nigaasahan ninkan laga maray ee haatan laga geegay ninka yidhi golmaran waa nibuu galay wadkiisiiyo gaf iyo laacin ogeeda waa guniya xaalkeeda caliskuba gadaasay qabaan giirmamaaladu iyo shir la gooday waa yeel gab yidhi garangar meegaaran mar haddaana erey laygu goday golo ka qaaday nin gobo kalena waa eryaran geesta kala yeesha hadalkaa guddaa loo wiciyo gacan islaameed nin garaad lahoo idinla waa guurta loo wacaya rabbaa idinku gooshaye baldaya garaca weydhiisabiyo ninka soo gilgelay hootadu koru garaa raacshay gamonyeynta aan jirin ninkaa samada gaarsiiyey ragga el ku gaardiyay intuu guudka kaga keeni geelisa maantaan dhaco gamasi yuusayso maantuu garmaamaha sanguhu daba gableynayay gidigeeda maanta muxuu geedho oga hore hadduu geesi yahay maalinkaa gabi ma jeexeena garacyada markaan rogay muxuu goojada u istaagay sidii goosan weer helay markaan geesta kala raacay maantuu sadkii kaga galbadan gegida boohodla muxuu marada gengenka badan xaarka ugu gacashay gubtay muxuu iilahay guduriga hayloogi gamca weerashadiisii muxuu ii galaminayay gundahiiyo muxuu ii qabsaday gaariskay lowga afartaa ninkay geela gabyaba garabka mau saaray muku gubay dabka maara waa galabsigoodii gardaraysibu igu waday gocosho mau reebay galamaha hortooda ee dhacaan galabka duufaanay haddaan gacan kusii dayn lahaa waa gidmaan wuxuu yii bal muxuu la goranaya garac mu joogo waxaa dhahaya Sayid Cabdulle Xasan dhahaya Sayid Maxamed Cabdulle Xasan marka gabaygaasaan aad iyo aad oola yaaba macnihii ninkaasoo sidii macnaha ninka oola dabaaqtabay markii riyaan ku dilay nin qof nool loo oran karo riyaan ku dilay haddana lama aadi kara ma ogtahay ninkii oo nool buu yidhi xalay baan riyo ku dilay xalay baan riyo ku dilay buu yidhi macnaha cabsi awgeed ba kule ka yeedhsay bistay baan u malaynayaa abwaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsaneed u xafisan tahay taariikhihii iyo suugaantii Soomaaliyeed ee soo jireenka ahayd waana waxa runtii aad iyo aad muhiim u ahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa kula talin lahayd inay taariikhihii iyo waxyaabihii hore inay ay sidoo kale ay ula socdaan oo ay xafisanaadaan markasta horta Soomaalidu mar walba waxa ay higsato ama ay macnaha jeceshahay inay bartilmaameesto ama ay tusaale kusoo qaato horta waa taariikhaha soo jireenka hadda ka hor 3 nin baa jiray oo ma garanaysaa wax iska weydiiyay adduunka markay arkaan qaabka uu socdo saddexdaa nin wuxuu arkay walaalkii labana walaalo wuxuu arkay mid dhimanayo baahi u dhimanayo midna uu xoolihiisa wax kala celiya lalaaya wuxuu arkay Soomaalidu waxa ay macnaha xaraga moodi jirtay oo ay ma garanaysaa geedaha shirka la imaan jirtay oo ma garanaysaa aad garanaysaa fardihii la fuuli jiray oo la subag siin jiray oo intii la nacay dameerihii la biyo la ma garanaysaa la subag siinayo waxaa arkay gabdhihii ka wadan loo soo aadi jiray oo ila hebel
la odhan jiray oo magaranaysaa ilxaban leeyahay suuqay gashay taas adigu waxyaalo badan buu ninkii u horeeyay oo arkay tixyar buu ka tiriyay wuxuu yidhi dadka wada dhashay aan lahayn deer naxay xeeba labada uurka soo wada qabtay daacad kala weydeen daa ilow maxaa xiga adduun dabadii weeyaan aad iyo aad baad mahadsantahay abwaan aad iyo aad baan kugu mahadnaqay sidii wanaagsaneed arrinta ayaad waxaa fitay waad mahadsantahay abwaan axmed kuukaay